tutapigana na hatutaenda kupeleka vita mbali, tutapeleka vita hapa. Assalaamu calaykum, soo dhawaada daawadayaal. Sidaad la socoteen baraha bulshada maalmihii u dambeeyay waxaa qabsaday wiilkan marxuumka Allah u naxariistay oo lagu dilay dalka Kenya gaar ahaan Garissa. Soomaalida ku nool Garissa ayaa run ahaantii maalmihii u dambeeyay zaid ayaa loo dilayaa. Dhacdo lamid ah waxay dhacday bishii hadda la soo dhaafay. Isla dhacdadii haddana maanta ayay taagan tahay. sidoo kale wiilkan oo ku xiran katiinada ayaa baraha bulshada qabsaday. wiilkan ay u jeedin waa wiil marqaati ah. haddaba sheekada sidee u dhacday ayaa raba inaa ka dabgeeyo wiilka marxuumka dhimo doonay iyo wiilkan katiinada ku xiran ayagoo gaari Probox ah wataan waxay ka soo baxeen Garissa waxayna u socdeen meeshan lagu magacaabo Mudukari. haddaba ninkan Kenyaatiga ah sawirkiisa meesha idin soo saari doona ayaa dhaxda u galay. wiilashan sida la sheegay Allahu a'lam sokor ay wadeen Allah sokorta dalka Kenya lagama ogol sida ogtiin ka tarabaan ay ka tahay sokor Soomaaliya laakiin ay wadeen Allah marka ninkan Kenyaatiga ayaa qabtay wuuna istaajiyay. intaas kadib wiilka Soomaaliga labada wiil oo Soomaalida mid kamid ah ayuu xabad madaxa uga dhuftay wuuna dhintay habeen 7 saac ayuu dilay. kan kalena wuxuu ku xiray jeebe sidaas ayuu ku baxsaday ninkii Kenyaatiga ahaa. balse salaad subaxii markii la gaaray waxaa la arkay ninkan oo meedkiisa meesha yaalo waana laga soo qaaday wiilka dhimo doono. run ahaantii muuqaalo badan laga soo duubay dhiigga ka baxay iyo meeshaan xabad inta ka gashay halkaas ka baxday. dabcan YouTube-ka lama soo dhigi karo, Telegram-ka ku aragtayna umaleena. ilaahay u naxariisto wiilkaas. intaas kadib wiilkan waxaa la arkay jeebada ku xiran waana marqaati. wiilkan baraha bulshada zaid ayuu u qabsaday. Soomaalidu waxay isdhaxayeen dadka qaar ah wax muubsanayaan waxay leeyihiin ninkii dilay waa la soo qabtay balse wiilkan katiinada ku xiran waa marqaati. dadka qaar ah waxay dhahayeen marqaati lagu xiraayo jeebad Soomaaliya ugu imaan. runtii waa qalad, waxaadan ogan inaad ku hadashid. ninkan Soomaalida jeebada kuma xirin, waxaa ku xiran ninkan Kenyaatiga ah wuuna baxsaday. waliba jeebadii furihii lagu furlay asaga ayaa hore u qaatay. intaas kadib dawladda Kenya baaritaan ay ku jirtaa waxaana lagu raad joogaa ninkan in la soo qabto. Soomaalida ku nool dalka Kenya gaar ahaan Garissa runtii aad iyo aad bay ugu dhiban yihiin. waana wiilkii saddexaad u maleena oo dhacdo noocan ah lagu dilo asoo taksiilaha. horta Soomaalida wadan walba ay joogan waa lagu dilaa. Soomaaliya waa lagu dilaa, Kenya waa lagu dilaa, South Africa waa lagu dilaa, Uganda waa lagu dilaa, Mozambique waa lagu dilaa. horta Soomaalida siyaad baraa soo habaar oo siyaad bar uga tagaan haysto. ilaahay horta habarkaas aan ugu dul qaado. sida kale Soomaalida ku nool dalka Kenya ma hadlayaan. horta dalka Kenya anaga ma jisaareyno waa wadankeena labaad amni ah. Soomaaliya ku inaa ka helnay wadan ku dhaqanaana waaye. horta dawladda Kenya waa u mahad celinayaa laakiin somehow waxaa ku jiro dadka qaar oo istubadiin ah sida ninkan kale sawirkiisa meesha idin kaga muuqdo. horta sharci ka yaalo wadanka Kenya waxay tahay askari looma ogolo inuu shacab dilo sida Soomaaliya ka socoto kale dalka Kenya lagama ogolo. waayo hadduu askariga oo qof shacab ah uu dilo shacabkan hub ay qaadanayaan taasina waa problem. marka si walba ahaato dawladda Kenya horta arinta raali kama ahan. ninkan uga soo qaban doonta insha Allah. laakiin dadka ku nool Garissa oo wax gal oo yacni dadka wax gal hadli maayaan. waxaa arkay gabar yar oo maalin walbo dhacdadii ka horeysana ayadoo dheeso xanaanay Lion of Africa ayadoo qeelinayso xanaaqsan maalmo ka dambeeyna waa la xiray. waa ogeedeen inay baraha bulshada imaatay ee raali gelin bixisay. isla dhacdadii maantana waatan ayadoo ooynayso dhees anaga wadan ma nihin miya anaga Soomaali wadan ma laha miya Xasan Sheikh oo ayadoo ku hayso waatana. horta gabadhan maasha Allah waa gabar runtii dhiig la aad u furfuran tahay. dadka xilka hay sidan camal hadii dhiig u lahaayeen kulli anaga xaqeena waa helena aaminsanahay. laakiin dadka xilka noo haya ayaa lagu jiifo. Soomaali meel walba joogto hadee wadankii joogto hadee wadan kale joogto xil hadii aragto oo isbuufinay macnaha wax ay ku qabanaysa malan danteeda ay ka shaqaysanaysaa. runtii taasna waa wax aad iyo aad looga fiican yahay. dhanka kale wiilkan marqaatiga ah runtii baxar weyn ayuu ku jiraa oo Kenyaati badan waxay dhahayeen ben ayuu sheegi doonaa asaga ayaa dilay fuustay raba inay soo ku riixaan. laakiin waa isla arki doonaa barnaamijkaas meesha uu ku dhamaado. ilaahay horta u naxariisto wiilkan dhalinyarada ah
runtii waa wiil 20 jir ah oo wadanka u soo baxayay mustaqbal fiican ayuu lahaa laakiin waqtigiisa ayaa meeshaas ku ekaa my brother waxaa ku leeyahay naxariistii janna Allah u geeyo waana laga daba tagi doonaa dadkii dhibaatadan kugu sameeyeen xaabsanin waxaa ka tagtay wadan sharci leh waxaa ka tagtay wadan qabiil laga aqoonin waxaa ka tagtay wadan gaalahaba iska ahaatee 100% waxay dhaantaa wadankeena Soomaaliya kosof Soomaaliya waxaa arkaysaa Said Cali aad waxa arkay jabaati iyo alaab iyo isku cunahay arkay maqaayad iska fadhiyo waa ninkii naftiisa gubay meel aan laga ogeynaa mala 4 maxkamada la saaray ilaa hadan lama xukumin listiniyo hadii walba xabsi lagu helay maxay ka biileed meeshaan badar oo isku cunaa banyo maqaayad soo dhuunsho badar ku cunaa iska wareegay video laga soo duubay wadankaas horta 100% uu dhaama wadankan Kenya insha Allah waxaan rajeynayaa inaad niyo heshiid cadaaladaada muuqaalkan waxaa jeclaystay inaan intaas ku soo koobo hadaa naga cusub tahay janaalkan ku soo biir hadaa hore noo joogtana muuqaalka like garay share garay waa mahadsantiin bye bye